بسم الله الرحمن الرحيم أكون سو دوينا كورسين كمبيوتر ابلكيشن برشادة ام اس وورد 2010 موضوعنا ما تروح كتابسين يعني border and shading قابل لو استعماله border iyo shading oo xeyndaab lagu sameeyo qoraalada kamid ah ama page ko idil in loo sameeyo xeyndaab ama wareeg loo sameeyo so practice keena adina equal rand enter so borderka laba mid waay in qoraal aad ku sameynaysid ama word ama paragraph wuxuu rabaa aado iyo in page ka dhan aad ku sameynaysid so waxaan ka bilaabeynaa anagoo ku sameynayna qoraal so qoraalka aad rabtid inaad ku sameysaan paragraph ka dooranaysaa adoo jooga tabka loo yaqaano home group la yiraahdo paragraph yaa ka dooranaysaa buttonkaas oo ku qoran yahay no border oo dooranayna kadib so borders badanaa jiro qaabka in buttonka qaybta ugu hooseysa kaliya ah xariiqda board ka saartid xindabka in qaybta sare ka saartid in qaybta bidix ka saartid qaybta midig ka saartid no border inaad doortid in dhammaan mid sadar walba afartiis border in hal mar wada sameysid iyo outside borders aan sameysid yaa isticmaali kartaa iyo inside borders oo ah ku wareeg inaad iska dhaaftid so waxaan badan la wada adeegsadaa laakiin ugu muhiimsan adeegsigu waa outside borders waa wuxuu ku sameynaa xindab wareeg oo guud so xindab guud haddii arabna inaan ka qaadno isla asiga tagayna caleena no border qaadna so waxaan kaloo sameyn karnaa inaan borderka inta tagno kadibna aan dhahno border and shading oo halkaan aan kasii doorano boxka shadow qaabka uu noqonayo boxka it means afarta gees uu yeelan doonaa hadhow marka halkaan waxaan ka dooran doonaa marka qaabka uu noqonayo maxaa la yidhahdaa borderka haddii saan aa dhahdid hadhow wareeg saas uu noqon doonaa haddii arabna inaan wax ka bedelno border shading aan tegaynaa soo weyneyno kan aan doorano soo mar walba halkaan ayaa kasoo bedeli doontaa haddii aan rabo inaan no border ka dhigane no border sidiisa iyuu kusoo laabanaa waa qoraal markaa rabtid inaad border u sameysid qoraalkaad aad joogsid kadibna outside borders aad sameysid kadib outside-ka borderska waxaa ka bedeli kartaa halkan waa borderka markaa qoraalka u sameynaysid ka yareyn kartaa kan originalka la isticmaalo oo kan ah kaas waxaa loo yaqaanaa marka waa border oo aad u sameynaysid qoraal ama paragraph ha ahaado ama document ha ahaado ama word ha ahaado keliya intaan yartaa qabsan kartaa kadib maxaa u sameyn kartaa outside border u sameyn kartaa so border waa inaa xeyndaab ama wareeg aad u sameysid qoraal yar oo ku doornaa ama aad rabtid haddii aad marka pageka oo dhan inaa u sameeyo waxaa loo yaqaanaa border ama shadow inaa u sameeyo waxaa tegi karaa laba hab inaan doorano boxka hadda aan doorano border iyo shading aan doorano kadib borderka aan kasii doorano waxaa loo yaqaano page border oo ah in pageka oo idil aan u sameyno border oo pageka oo dhan aan wareejino xindaab aan u sameyno kadibna isla box kaliya aan doorano kii hore muxuu ah border oo ah kaliya textka loo sameynaya kan boxka aan dooranayna kadib aad yarto qoraalka kana waxaa ka bedelaysaa xariiqda inta ay noqonayso waad dooranaysaa kadib waxaa leedahay okay wuxuu ku sameeyaa pageka oo dhan page kale hadii lagu soo daro saan noqona so pageka oo dhan yaa wareeg qaabka loo geliya haddii aan rabo inaan ka bedelo border shading aan leeyahay isticmaali karaa mid kale kan iska isticmaal okay haddii aan rabo inaan ka kansalo none aan iska dooran karaa none means wareegii xeyndaabka oo maxaa la yidhahdaa sameynin oo pageka oo dhan oo qabanay oo wareegna marka haddii aragtid inaad sameysid kuwo hore u diyaarsanaa oo xogaa ubaxyo iyo waxna waxaa isticmaali kartaa border shading aan leenahay page border aad tegayna kadib artiska tegayna waxyaaba hore loo sawiro kale waxa ubaxaan noocyadan mid ka rabtaa dooranaysaa kan oo kale dooranay soo wareegi qaabkaas oo noqonaa kana dooranaysaa wareegi qaabkaas oo noqonaa okay aa leedahay border inaad u sameysid pageka oo idil so option labaad aad ugu sameyn kartid page borderka waa inaad tagtid group tabka loo yaqaano page layout kadibna aad dooratid border kadib waxaa kusoo bixi doona boxkii hadaayadan aan ka shaqaysiinayni kadib automatic page borderka hore kaga gei doonaa kadib halkaan waxaa rabtaa ka bedelinaysaa oo kaa leedahay page border ayuu kuu sameyn doonaa so waa laba option in option koowaad wuxuu ahaado home tab joogo in halkaan ka bedeli kartid iyo inaad page layout tagtid kadibna borderka aad dalbatid kadib aad dalbatid waxyaaba badan intaan ku jiro marka nooca rabta dalban kartaa kadibna oo kaa leedahay border oo kuu sameynayo pageka oo idil
so haddii pageka la sameeyo enter pageka la sameeyna oo samaysmaasina pageka idil iyo borderka u wada samaysmaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.